ugu horeyn dhibka wuxuu ka imaaday iyo adeega iyo isfahan la-aanta, naxariis la-aanta, qalafsanaanta waa dhanka dhaqanka oo dhinaca ah familka oo dhinaca qoyska wada jooga labada qof ninka ragga iyo xaaskiisa marka ugu horeyso noloshooda sida ay ku bilaabatay intii macaaneed unbuu kala socday ninka ragga iyo xaaskiisa. mararka qaar dhibaatada markay imaato, markay xanuun yimaado, markii gabadhaas ama ay mar ay umuleyso tagto ama markay tahay inay walac tahay, intaba sida badan ma arki jirin mana la nooleyn sida dhaqankeena uu ahaan jiray marka hore. inkastoo waayihii dambe wax badan la kala fahmay oo la kala faa'iiday. marka insha Allah kusoo dhawaada barnaamijka. bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa Cafiifa iyo mar kale janalkeena Cafiifa Channel. kusoo dhawaada dhammaantiin walaaladii, waa idin salaamay meel walba aad joogtaan. jimco mubaarak, jimco kariim. ilaahay jimcada fadligeeda iyo wanaageeda hana waafajiyo dhammaanteena meel walba aan joogno. ilaahayna inteena xanuunsan ha caafiyo, intii dhimatan ilaahay ha u naxariisto, intii dhibaatooyin kala haystaan ilaahay ka dulqaado, dhammaan ummadda islaamka ilaahay ha u naxariisto, qaas ahaan ummadeena Soomaalida ilaahay ha u naxariisto, hana tuso wanaagga iyo khayrka. insha Allah kusoo dhawaada. maanta waa barnaamijkeena talo iyo tusaalo qaybtiisii afaraad oo aan kusoo qaadanayo maxayda dhaqanka dhanka qalafsan oo ah labada qof oo wada joogto. waxyaalaha dhibka ka yimiday adeega ka imaada dhanka ragga ah, naxariis darrada qaarkood sida badan mooda ahan, laakiin wixii oo loo badan yahay dhaqankuna u badnaa in laga hadlo ay fiican tahay maadaama markii dambe ay wax isbedbedeleen oo dadka sida la wada ahaynin oo in naxariista ilaahay ku beeray oo tusay ay badan yihiin. intii weli adag ku jiro oo adeega qabana in ayagana ay kasoo dibcaan oo ay dareemaan nolosha insha Allah. saasa ugu wanaagsan marka qaybtaasaan kusoo qaadanaya maanta. markii horeba waxa aan aniga aan u sababeeyay oo aysan ragga aysan u dareemin badanaa naxariista dhanka inay nolosha la fahmaan, qofka ay la nool yihiin oo ay u naxariistaan, oo markii ay xanuunsan tahay, markii ay dhibaatooyin kale ay ku jirto, inta badan waa nolosheeda dhanba waxay u dhaxaysaa nolol aad u adag waaye. mar ay iska tahay walaa, mar ay uurey tahay, mar ay umul tahay, mar walba howl ay ku dhex nooshahay ma ahan mar ay caadi si degan ay u nooshahay ma jirto. waa mar walba waxbay u taagan tahay. gurigaas aas-aaskiisa waa ayada, waxa lagu nool yahay waa ayada, waxa lagu degan yahay waa ayada. marka aad ay howlaheeda u badan yihiin. marka dhaqankeena marka hore waxaa sababta u ahaa oo ilaa hadda ragga uga dhaadhici ilaa in ay dhankaas ay ula fahmaan dumarka oo ay naxariista ugu muujiyaan. waxaan u sababay yani oo ayna tahay dhaqankii marka horeba noo ahayd dhaqan oo ilaa haddaba ay noo tahay. oo ninkan markii gabadhan loo soo guuriyo, loo soo aroosiyo, gurigaas lagu wada noolaado muddo ka dambe haday gabadha xanuunsato, tusaale haday walacdo kale reerkeedii ay aado, la yiraahdo intaa lagu haynaa gabadhu way xanuunsan tahay. muddo ka dambe haday ka baxdo xilligii oo ku qaadataba xanuunkaas ay kasoo roonaato, inay gurigeeda haddana ku noqoto iyadoo caadi ah, oo haddana markay gaarto heerkii umusha haddana reerkii loo kaxeeyo, la yiraahdo meeshaanay ku umuleysaa, ku umul baxaysaa, haddana iyadoo hadhowti umusha kasoo baxday, soo caafimaaday, cunugeeda yaraa hore usoo qaadatay, soo libisatay, lasoo habeeyey familka, haddana qof arooska haddana ay timid gurigii, amaba ay dhacdo in ay guriga joogto oo ay gurigeeda ku umusho, oo haday xanuunsantaa gurigeeda joogto, oo ninka raggaa la yiraahdo adigana ka tag gabadha anagaa la joogayna, anagaa caawinayno. marka ay umushayba ugu badneedba dhaqanka siday ahayd in ama laga soo haayo ninkaas gabadha intay umusha tahay, ama guriga lagu haayo asaga laga diro sida badan. marka xilligaas dhibaatadii ku sugan tahay xaaladii maba arkayaba, asaga waa laga qariyay mar walbo. marka naxariis meeshaas kama dhalanin, adeeg, naxariis darro intaba meesha ka imaanaya. waxaa la rabaa labadan qof markay isla nool yihiin in ay markii la faraxsan yahay farxadda la isla dareemo, xanuun markay tahay xanuunka
murugada markay tahay murugada wax walba la isla dareemo meeshaasuna jaceylkooda uu kasii kordhaya. nin marka cunugiisiba dhalanayo aan arkin ooba asigoo cunugii loo soo libisa gabadhii oo loo soo libisa lagu soo celiyey fooshi aan wax ka arag meel cunug ku dhalanayo aan arkin naxariis maba laga sugaayaba. marka aad adeega meeshaas ka imaaday waxa u sababan waa dhaqanka. marka dhaqamo dhinacyada qaldan in laga saxo uu ku fiican yahay maba ahanba sidii qof ka ajnabi in laga qariyo gabadhiis markay umulaysa la yiraahdo annagaa soo umulinayno annagaa keenayno waxa fiican oo asaga garab taagnaado asaga dhibaatada la dareemo inuu xanuunka la qaybsanayo dareensiiyo naxariista marka asagana naxariisa ugu beermaysa ayada. laakiin mar walba gabadhiyo caafimaad qabto arkaya dhibaato ayna ka muuqan oo xanuunkaas iyo dhibaatooyinkaas familkeeda kusoo ag dhamaysatay ama ha ugu imaadaan inta ama meeshaas. marka waxaa wanaagsaneed in labadan qof la iskaga dhex baxo haddii la caawinayo caawinta dhinacyo badan ee gashaa laga caawiyo laakiin dhinacan ay ayagu is caawiyaan isu naxariistaan isu naxaan dhibaatada isla qaybsadaan xanuunka isla qaybsadaan wanaagga iyo farxadda isla qaybsadaan oo ayaga la iskaga dhex baxa saasaa wanaagsan. marka dhankaasna way keeni kartaa sida aan aragtidayda aan u arkay. dabcan idinkan inaa ilaa qabtiin dhici karto oo in badan oo isku fikradnaha ay jirto. marka intaasba qofka markuu arko oo gabadhiis intay umusha ahayd oo umusho kale uu caawiyo uu ka caawiyo wax walba oo cuntada u soo sameeyo uu la joogo waa naxariis. ilmihiisi sidoo kale way u baahan tahay intay umusha tahay intay xanuunsan tahay in la caawiyo. tusaale hadda ka hor gabadha waxay tiri Soomaali ka sheekeynaysay hooyadii umushay tiri marka waxa cunto noo sameeya la waayay quraacadii oo kale wax noo sameeyaan weynay aabahay darisku u tagay tiri islaan dariskeena ahayd wuxuu dhahay gabadhaan rabaa inaad noo soo dirto ilmaha quraacay wax iigu samayso islaanta umul waaye in la caawiyo. marka maamadu waxay tiri gabadheeda anay hadana u dirsan rabo oo hool ii qabanaysaa aaba guriga ku soo noqday wuxuu iska daba noqdo adigu shaahu marka dambe noo sameeyay maalinta dambe waxay ku tagtay tiraabin oo asaga uu cuntada isku dayo oo wax noo sameeyo. maalinta waxay tiri hooya dhaxda soo xirtay canjeeradii noo dubtay maalinta inta ka dambeysay aabe asagaaba inuu sameeyo isku dayay tiri. marka soo wax dhib ah ma ahan oo wax qurux badanna ma ahan nin dhan oo soo taagan ciyaalkiisa baahan yihiin aan waxba digsi dib u saari karin aan canjeeradii iyo wixii loo baahnaa usoo samaysan karin asagoo intaa la eg dariska aadaya ilmaha lagu kariyo waa dhaqanka. marka dadka dhaqanka qaybo badanaa jiro dadka dhuminayo waxyaalahaas oo kala dhici karo wax wanaagsan ma ahan. marka waxa fiican in meelahaas oo kale la iska saxo in waalidiintana marka gabadha iyo maxay ahayd ninkeeda ay wada joogaan dhinaca maxay ahayd haddii noqoto dhinaca gabadha iyo dhinaca ninka haddii noqoto kusoo dhex ordaayo oo la ordaayo caawinta noocyadaas oo kale waxa fiican inay meelaha looga baahan yahay ka caawiyaan familka meelaha aan looga baahnayn ay dhahaan adinku isgarabsada isna caawiya saasaa wanaagsan si ay dadkan isugu naxariistaan isugu naxaan. aniga fikradeyda insha Allah kulaaleyd qaybta kale oo shanaadna insha Allah waxaan kusoo qaadan doonaa sida maxay ahayd ixtiraamka iyo sida in la isugu naxariisto ay ku wanaagsan tahay waalidka iyo inta kale ama ay dhaleen ama maxay ahayd gabdhaha ama wiilasha wada joogo waalidiintooda inta waa waalidka kulligoodba ixtiraamka guud oo waalidka insha Allah qaybtaas shanaadan kusoo qaadan doonaa. khayr badan aan idin rajeynayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.